بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaybteena casharkeena labaad waxaanu ku qaadan doonaa PowerPoint-ga sida loogu shaqeeyo ama PowerPoint-ga saad ugu isticmaali lahayd Camtasia Studio. Camtasia Studio iyo PowerPoint-ga siyaabo badan ayaad ugu isticmaali kartaa. Saddex qaybood ayaan eegi doonaa. Waa qaybta ugu horeeye waxaan isticmaali doonaa sida title-ka ka arkayseen adding. Markaan tabkaas tagno waxay noo soo bixi doontaa qaybtan yar oo inaan Camtasia Studio optionkiisa wax ka bedelno iyo button-kii recording-a. Button-ka recording-ka ayaan taabanaynaa. Kadib muraayad weyn ayuu inoogu soo saarayaa oo presenting-kii oo kale ah. Button-kan yar ee hoose ayaanan ka bilaabeynaa inaan presentation-ka bilow nidhaahno. Eega duubitaanka u socdaa waana duubaya. Slides-kana sidaas ayaan isku dhaafin karnaa. Markuu dhamaadana wuxuu weydiinayaa recording-ka ma inaad sii wadaad rabtaa mise inaad joojisaad rabtaa. Halkaa inoogu jooji ayaan odhanaynaa. Halkaas wuu inoo duubay kaa meelaan ku save garaysano ayuuna ina weydiinayaa. Waxaan odhanaynaa PowerPoint. Kadib markaan magaca ula baxnayn save nidhaahno wuxuu weydiinayaa inaanu soo saarto ood rabtaa ood sidaas ku soo saartid mise inaad edit soo dirtid ood wax ka bedeshid ayaad rabtaa. Qaybta labaad ama qaabka labaad ee ugu shaqayn kartid PowerPoint. Qaybta labaad ee PowerPoint ugu shaqayn kartid waxa waaye inaad media tagtid ood import soo tiraahdid. Inaga slides-kii ayaan soo dooranaa. Waa kan meeshuu ku yaala ayaad tagaysaa. Slide-kii ayaad soo dooranaysaa. Open ayaad soo dhahaysaa. Markaad open soo dhahdo sidan ayuu kugu furayaa. Slides-kii oo sawir ah ayuu kuu soo qaadan doonaa. Kadib waa inaad soo qaadid saddexdii waa kan soo qaadid sidaana aad isku garab dhigtid. Waad samayn kartaa mid kastaa 5 ilbiriqsi ayuu ku siinayaa. Waanad ka bedeli kartaa waqtigiisa waad yareyn kartaa waanad weyneyn kartaa. Mid waa sidaas ood ku shaqayn kartid. Qaybka labaadna waa sidaa. Qaabka saddexaad haddaan u gudubno waxaad samayn kartaa markuu sidan kuu yahay PowerPoint-kaagii inaad screen recorder caadiya soo furatid kadibna start recording aad tirahdid. oo sida aad ku duubtid. Intaas oo qaabba waad samayn kartaa. Casharkeena maanta intaa buu nagu egyahay. Saddexdaa qaybood ayaana samayn kartaa markaad ku shaqaynaysid PowerPoint. Inta kuu fudud isleedahay uu kugu habboon yahayna waad isticmaali kartaa saddexdaa qaybood ee uu kuu dhib yar yahay. Kolley waxaan u malaynayaa ka ugu horeeya ayaa ugu fudud oo ka ugu sahlana. Intaa ayaan ku joojinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.